عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين حمراء وإذن كصوتا هاي محاني هاياوي ما أنت ولاشين حمراء محيني هاي ساعة ما أنت وحاني هيا إن هاي الصوماليات أيا وحي سوي ديسي إن وحان عنا كالشيوم كنينيغا كالشيوم كان عنا وقت دير أيا عناي وإيغا سي داري ما أنا وح وإي تري مالها. طبعا hooyadan waa qof weyn runtii ma dhihi karno dadka way dilayaan dadkan laakiin haddana saasoy tahay qofka markuu qof weyn yahay somehow ajnabina uu yahay waxa weeye sidii la rabay I think ummadda weeyaan allahu aclam wixii dambi ilaahay naga cafiyo hooyadan waxay isoo weydiisay maxaa oo natural ah alashaan waxa dabiiciga aan cuno ii sheeg waan ka helayo calcium marka hooyada kaligeed inaan u jawaabo way ila foolxumaata xoogaa waxaan jeclaystay inaan dadkayga dhan Soomaaliyeed all my people inaan uga jawaabo jawaabtan waxaan filayaa hooyadaas dad la mid ah inay jiraan oo raba waxa inay ka ogaadaan waxyaabaha naturalka ama dabiiciga ah ay ka heli karaan calciumka ay helaan advice-keeda ama advice-kooda ama warbixinteeda marka waxaa laga yaabaa hooyada inay dad badan oo Soomaaliyeed la xanuun yihiin ay isku mid kaga yihiin because waxa weeye dadka bini'aadanka waxyaabo badan ay ka siman yihiin ayaa jirta qaar isku cudur ah qaar isku dabeecad ah ama qaar isu dabeecad dhow waxyaabo badan ay iska masalaan dhibaato qof haysata ayaa qof kale iyadana taasoo kale ay haysan kartaa marka saasan jeclaystay inaan dadka Soomaaliyeed dhan ama hooyooyinka kale ay ka faa'iideystaan ama aabayaasha adigu dadka waaweyn ay u qoraan dhakhaatiirta dawooyinka calciumka horta dawooyinka calciumka runtii ma fiicna in ay jirkaaga ku bataan laba siyoodba mar lafaha ayaa waxay ka dhigaan dhagax like nuurada ma aragt adeegta ah marka meel lagu shubo dhagax oo kale maxaa la dhahaa sibirka ama shamiitada oo kale ayay dhagax ka dhigaysaa sidoo asaga u cad yahay dhagax u yahay oo kale ay dhagax ka dhigayaan tan kale kiliyaha ayay waxay ku sameyn karaan dhagax kiniiniyada badan oo la cunaayo marka waxa dabiiciga ah oo u fiican ayaan rabaa inaan wax idin ka sheego soo dhawaada horta broccoli waa fiber uu leeyahay fitamiinaad ayaa ku jira calciumna waa laga helaa anaga haddaan Soomaalina waxaan aqaanaa cheese-ka iyo caanaha laakiin cheese-ka iyo caanaha keli ah lagama helo calciumka khudaarta ayaa laga helaa ama vegetable-ka ama fruit-ka qaarkood ayaa laga helaa calciumka marka broccoli hadda waxa weeye baartada wuxuu ka tirsan yahay vegetable-ka kale ayaa jira isagana oo vegetable ah waliba kale-ka waxa weeye high calcium haystaa waa top calciumkiisa caanuhu ka calcium badan yahay iyo cheese-ka وانا كيل وعقار إلهي دول كسو بحير ايش رأيك بالكورما كورما وحلالا يابسو معها مركا كيلكا يا بروكليغا تينكا جيدكا لدهو ama qalayl ku cun dryga midka ah ama midka qoyanba
calcium uu leeyahay. Soya beanska waxaa jira xataa caano soya la dhaho oo beanskan laga miiro. waxaa jira geed kale oo cheese oo kale u eg oo soyahan laga sameeyo. marka soya beanska asaga laftirkiisa fitamiinaad uu leeyahay, calciumna waa laga helaa. soya beanska fitamiinaad ku jira waxaa ka mid ah potassium sida muuska oo kale ka waran, waana digir. calciumna waa laga helaa. orangeda ka waran, waa maxaa la dhahaa, orangeda waa fruit ama waa fawaakihaadkay ka tirsan tahay, haddana calcium ay leedahay. orangeda dhanaanka iyo macaanka iskugu jirta aad aragtaan, calcium ay leedahay, ama liin macaan hadba saa u naqaano, waxaa laga helaa calcium. salarada waxaa laga helaa calcium. waa taqaanaa salarada, salaro badan baa jira, hal kaliya maaha, laba maaha, saddex maaha, noocyo badan u kala baxaan. waxaa laga helaa qaybtood calcium. almondka waa lowska almondka la dhaho, ama caanaha laga shiitaa, caanihiisaa jiro ayagoo diyaarsan xataa waa helaysaa. waa laga helaa dukaamada oo baakad ku jira, waa soo gadan kartaan ama sidiisa waa u cuni kartaan. almondka waa lows. xitaa calcium kaliya lagama helo almondke, waxaa laga helaa fitamiinaad kale ayaa laga helaa. waxa uuna protecti ka yahay wadnaha diseaska gala ayuu protecti ka yahay almondka lowska la yiraahdo. spinachka waa aragteen, spinach ama koosto hadba saa u taqaanid, waxaa weeye calcium ayaa laga helaa. kansarkana protecti ayay ka tahay. waxaa ku jira maado kansarka ka hortegaysa, spinachka iyo lowskan almondka la yiraahdo labadaba. kaalka xitaa wuxuu u fiican yahay keliyaha dhagaxa ku samaysmo, stoneka maaragta, keliyaha dhagaxa ku samaysmo ayuu dawo ka yahay oo u fiican yahay markaa karsatid ood cuntid. marka ka faa'iidaysi wacan. tan kale soomaaliya waxaan oo dhan waa wax dhulka ka yimaada, waa wax ciidda ka soo baxa. anaga soomaali haddaana ciiddi waa haysanaa, qoraxdii oo joogta ayaa haysanaa. dhulka yaga qabowna maaha, kulaylna ma aha intiisa badan. dhul oomana ah oo maxaan ku rahdaa qarfo ah uma badnin. dhulka yagu biyuu leeyahay, haddii ciddii biyaha ka soo saarta. jas dhul waxaa jira dhagax ah oo biyuhu ay fog yihiin, laakiin haddana biyo waa leenahay. tan kale biyaha waxaan ka soo saaran karnaa togaga dhexdooda. togaganna qaadaya, waxaan ka faa'iidaysan karnaa, biyahooda way dhow yihiin, ciiddina waa jileec, la qodi karo, waa laga soo saari karaa biyaha. biyaha halkaasaan ka heli karnaa, weliba biyo macaan maybe inay noqdaan. marka biyihii haddaan haysano oo qoraxdii haysano oo maxaan ku idhaahdaa iisheeg ciiddii haysano, ciiddeeni oo weliba aynaan beeran oo nafaqadeedii ku jirta haddaan haysano, maxaa naga maqan wey? waxaa naga maqan in aan fikirno, in aan fikirno, dhahno ayaa naga maqan. waxaa naga maqan oo kale kalsoonidii, in aan isku kalsoonaano, inaan wax qabsan karno, inaan wax soo saaran karno, inaan awood leenahay, inaan xoog leenahay. xooggan aakhiro aboor baa cunaayo, ka faa'iidayso. ninka ragga ah ama qofka bini-aadanka ah, gacmihiisa waa power ilaahay siiye. power wey, awood weeye ilaahay uu siiyey. haddaadan ka faa'iidayso iska micno ma yeelanayaan. laakiin gacmaha waxaa kasii muhiimsan maskaxda.
maskaxdeena haddaan think dhahno oo fikirno waxbaan qabsan karnaa. iyada weeye waxa bush garaysa jirka intiisa kale. iyada weeye midda ku dhahaysa kac, istaag, fadhiga ka kac, soco, wax qabso, gacmaha dhaqaaji, lugaha dhaqaaji, wax la soo bax. midda ku amraysa ku bush garaynaysa waa maskaxda. marka dadka Soomaaliyeed ma dhahayno ma caqli yarin, laakiin haddana I don't know, somehow waxbaa naga khaldan. dadkii hore beeraha xitaa roobka ayay wax ku beeran jireen. labada gelin maxaa la dhahaa, labada jeer labada season uu roobka yimaado ayay wax ku beeran jireen. maxaa la dhahaa, haruurka, galeyda ama badar haddaa saa u taqaanid, masago, magacyo badan ay leedahay haruurka, ayay beeran jireen. digirta, galeyda, oo ay ku noolaan jireen, ay kiib garaysan jireen. waxay meel u dhigan jireen abaar markay timaado si ay u cunaan oo uga faa'iidaystaan, ama ay xoolahooda siistaan, ay ku seef gareeyaan hadday abaar timaado. marka dadkii saas ahaa waxay noqdeen dad maanta dhan soo taagan dhahaya hay-adaha wax bixiyo, waxna siiya, naga soo gaara, kaalaya, in waxa dameeraha ama fardaha ama lo-dooda aanay u quurin inay noo soo diraan, ay na siiyaan, ay noo qaybiyaan. oo cudurro badan oo la garanaynin ee dadkii Soomaaliyeed ay ku dhaceen. marka Soomaaliyey wax qabsada, beeraha fasha, xooga maala, awoodiina arka, ilaahay idin siiyey. marka waan salaamayaa. share, comment, subscribe, thumb up please. Bye.